aad baan ugu faraxsanahay garoonka Cawaale in maanta ay noogu timid shirkadda Samtel oo markii ugu horeysay shirkadii ugu horeeyay ka mid tahay muddo badan ay garab taagneed sportska iyo dhalinyarada ku soo dhawaada shirkadda Samtel garoonka Cawaale door weyn baad ku yeelanaysaan aniga ku hadlaaya magaca ama afka guddiga dib u dhiska dib u habeynta garoonka Cawaale waxa sharaf weyn noo ah kulligaya ka soo qaybgalka inagala soo qayb gashay shirkadda Samtel oo durba soo jawaabtay dalabkii aan u jeedinay iyo wixii aan u qoondaynay waxaan leeyahay marka halka kaga faa'iideysanayaa wareejintan nagu soo wareejinayaan maanta wixii noogu tala galeen ama ay noogu tala galeen dib u dhiska Cawaale Stadium waxaan kaga faa'iideysanayaa oo aan leeyahay shirkadaha la midka ah ee aanu ku qoondaynay ganacsatada iyo shirkadaha ku qoondaynay oo sidaan oo kale ayagana aan qoonda u goynay iyo maamulkii oo dhan ayagana waxaan leenahay maadaama waqtigu gaaban yahay noo soo degdeg aanu leenahay hawsha ayada ana wax nagala qabtaan leenahay sida la socotaan mudanayaal iyo marwooyin shirkadda isgaarsiinta Samtel meel kasta joogto waxa wakiilka ah ama hormuud u ah waa dhalinyaradaas oo dareensan baahiyaha guud ee wadanka ka jira iyagoo la soo jaan qaaday si kasta oo wadankana u burbursada iyagoo la soo jaan qaaday oo doonaya inay gaarsiiyaan wadamada kale wadankooda maanta waxa Ilaahay mahadiisa inaynu inagu haysano caafimaad sidoo kale aynu haysano garoon sidoo kale aynu haysano nabad iyo barwaaqo waa wax Ilaahay loogu mahadiyo aan u mahad celinaynaa shirkadda isgaarsiinta ee Samtel oo ku tabarucday lacag 5,000 dhan si wax looga qabto xaruntan dhalinyarada lagu barbaariyo ama garoonka ciyaaraha iyo waxyaalaha raacsan leh waxaan leenahay meesha ka soo bixiseen wax ka khayr badan Allah idinku bedelo amiin waana dhiirigelin fiican waa shirkadii u horeysay intii guddigan in wax ka qabto garoonka Cawaale loo diyaariyay ay shirkad ahaan wax u soo guddoonsiiso iyadoo dalabaad badan la qadimay maadaama ku u horeeytiin waxaan leenahay jazaakumullahu khayran mar walba khayr ku degdega shirkadda Samtel oo bixisay taakulayntii ugu horeysay bixisay oo aan ka filaynay inay bixinayso awalna horay u bixin jiray wax badan oo bulshadu ay u baahan tahay u bixin jiray shirkadaas aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana idinka guddoonay lacagtii Allah idin barakeeyo ganacsigiina